طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعي حول الكتاب شتاتا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرس كيني سديدات برنامج كيني تجويد كقرآنك يهبك قرآنك الله أخريه أيوه. waxaynu ku soo jirnay walaalayaal duruustii aynu kaga warramaynay xuruufta luqada carabiga iyo goobaha ay ka soo baxdo. deriskii ka horreeyey waxaynu dhex gallay gurigii iyo mawdicii iyo goobtii ugu ballaadhnayd ee xuruufta inta ugu badani ay ka soo baxaysay. waa guriga carabka loo yaqaano oo xuruuf badan oo 18 gaadhaysa ay ka soo baxaan carabka, isla markaasna 10 meelood oo carabka ka mid ah ay ka soo baxayeen. 4 goobood ayaynu ka soo warranay oo kala ahaa carabka halka ugu fog oo uu ka soo baxo xarafka qaafka loo yaqaana, iyo halka u fog laakiin ka yara sokaysa oo xarafka kaafka la yidhaha uu ka soo baxayay. carabka bartankiisa oo ay 3 xaraf ka soo baxayeen jiim, shiin iyo yaa, iyo dhinacyada carabka midkood labadooda ku doonaba ha noqdee oo xarafka adag ee daadku uu ka soo baxayay. waxaynu maanta ka bilaabaynaa insha allahu tacaala makhrajkii iyo goobtii 5aad ee ka mid ahaa qolalkii gurigaa weyn ee carabka u lahaa, waana xarafka loo yaqaano laam. waxaan baraarujin lahaa, waxaan qowlka innagu aynu qaadanay wuxuu ahaa 17 qol ayaa ay xuruuftu ka soo baxdaa. culimada qaar ayaa waxay qabaan intaa in ka yar. imanka imaamu ibnuljazari raximahu llahu tacaala wuxuu qabaa laam, raa, nuun inay kala yaro duwan yihiin. culimada qaar baa waxay qabaan 3daa xaraf inay meel ka soo wada baxaan. caarada hore carabka oo dhanxanaga sana taabanaysa inay ka soo baxayaan ayay culimo badani qabaan, culimo ka mid a culimada. laakiin ibnuljazari iyo aqlabka jumhuurta iyagu waxay qabaan inay kala yaro duwan yihiin. farqiga u dhexeeya wuxuu noqonayaa farqi aada u yar. markaa arrinkaasi wuu iska sahlan yahay. haddii 3daa xaraf qofka meel ay uga soo wada baxaana dhibaato kuma jirto, haddii sida culimadu ay usii kala saareen ay uga soo baxdana dhibaato kuma jirto. xarafka laamka la yidhaah, laam waxa uu ka soo baxaa ayaay culimadu leeyihiin dhinacii carabka aanu sheegnay xaggiisa soke ee caarada xigta ayaa waxay qabsanaysaa xagga sare ayay u kacaysaa ee ciridka iyo carabkii dhinaciisii qayb ka mid a oo xagga sare isula kacay, xagga ciridka isula kacay ayaa ay ka soo baxaysaa. waa laamka. al caaraduna kama maqnaanayso. sidaas darteed ba culimada qaar waxay leeyihiin mar hadday caaradiiba soo gelayso, laam iyo raa iyo nuun isku mid aynu ka dhigno. alla waxaad iska yeelan kartaa allah ood meelaha qaarkood ama meelaha weyna meelaha alla aad tiraad yarayso. xarafkan laamka la yidhaahdaa iyo xarafka raa la yidhaahdaa, labadaasi oo nuunkuna ka saddexaadee soo raacaya soonaha soo geliya uu yahay. laam iyo raa waa 2 xaraf oo calaamadaha ay leeyihin ay ka mid tahay marna in la weyneyn karo marna la yarayn karo. marka shuruuda laga helana waa la weyneeya, marka shuruuda laga helana waa la yareeya. sidaas darteed
waxaa muhiima inuu qofku u fiirsto oonu iska weynin meel aan weynin xarafka ama aanu yarayn meel aan yarayno labada xaraf ka mid ah in sha allahu tacaala waaynu sharxi doonaa markaaynu halkooda gaadhno marka xarafkaas laamka oo culimada qaar ay leeyihin maadaama xaafadii waa dhinacyadii ka mid a ayuu ku jiraa bay leeyihin maadaama uu ku jiro laam kuma jiraan nuun iyo raa iyagu waa caarada hore saa darteed way ka duwan yihin bay leeyihin oo iyaguna culimada le way kala tirsan yihin weliba nuunka iyo raaduna iyaguna way sii kala tegsan yihin oo iyagana waxbaa udhexeeya ay culimadaasi laftigoodu waxay waa culimada 17 ka dhigaysa marka haddaad doonto carabka caaradiisan dhinaciisan hore dhinaca bidix hadduu kuu noqdo iyo dhinaca midig hadduu kuu noqdo labadaba culimadu way banaan yihin bay yidhaaheen haddii labada dhinac oo xagga hore ah oo caarada usoo dhow labadaba uu laamka markuu ku dhawaaqayo xagga sare ciridka ay qabsadaanna wax dhibaato ama leh taana runtii waa arrin muhiima oynu sheegin arrinku uu fudud yahay laakiinse waxa way qofku inuu dareensanaado unbaa muhiima laam marka xaraf la yaraynayo marka xaraf la weyninayo waynu dhigan doonaa laakiinse haddaynu iyo sii qadino marka xaraf la yaraynayo waxaa la doonayaa un carabkaa la kala furaa markaad doonaysa inaad wax yarayso markaad doonaysa inaad weynaysana waa laisu soo yaro dhaweeya waa intaa ardaydu taa ha dareensanaadaan xarafkaa hadduu ku dhaha macallin weyne xarafkaasi wuu weyn yahay afka isu soo dhawey hadduu ku dhaha yareena afka kala furo kala yaro durki waa intaasun yaraynta iyo weyninta farqiga udhexeeyaaba waaba intaasun guriga ama qolka baan ujeedaa lixaad ee gurigaa weyne carabka ka midi waa laamka waxaan ujeedaa waa nuunka laamka weynaga soo sharaxay waa nuunka nuun an culimada labada culimo ee kale qolna ay leeyihiin guriga wuxuu leeyahay qol gaara qolna ay leeyihiin maya laamka isku mid yihiin farqiga udhexeeya waa ka aynu soo sheegnay qole waxay leeyihiin laamka isaga waxa uu la dheeriyey labada xarafe kale ee nuunka iyo raada wuxuu la dheeriyey xaafada dhinacyadaa wax ka galeen nuunka iyo raada iyaga wax xaafada ay shuqul ku leeyihin ama dhinacyadaa waxay shuqul ku leeyihin ma jiraan bay leeyihin saa darteeda farqiga udhexeeya waa kaasi yidhahdeen marka nuunka marka la sheegayo waxa weeye wuu kasoo yaro sokeeyaa bay odhanayaan qoladan le wax farqi baa udhexeeya laamka wuu kasoo yaro sokeeyaa oo isagu xaafadii iyo dhinacyada muu gelin laakiinse waa caaradii carabka iyo inta la siman ee ciridka ah oo istaabanaya waxay markaa noqonaysaa an nuun anna qolka toddobaad waa carabka caaradiisii waa la mid uun xagga carabka caaradiisa xarafkeen imika aynu ka warramaynay nuunka waa la mid in yar oo farqiga u sameeyaan culimada qaarna waxay leeyihiin sidaynu marar dhowra ku celinay dariskeennan waxa weeya farqi yar baa udhexeeya waa carabka caaradiisa laakiin carabka dhabarkiisa iyo xaggiisa sare ayaa xarafkani uu xoogaa qaadanaya waa xarafka loo yaqaana raa iyada dahriga carabka dahrigiisan iyo dhabarkiisan ayaa waxaa raadiibaa door ka qaadanaysa ama waxoogaa ka qaadanaysa dabeedna waxay leeyihiin dahrigaa wax badan kama qaadanayo laamka kamana qaadanayo nuunku sidaa darteed bay raadi uga duwan tahay halkay culimo kale leeyihiin saddexdani waa isku meel uune isku qol qura ayay kasoo baxayaan wax badan oo udhexeeyaana ma jiraan xarafka raa la ydhaha arwa raada markaynu ka hadlayno waa xuruufta aadka looga warramo ee ugu tilmaamaha iyo sifaadka badan mar waxaa lagu odhanaya raadaasi way yaree mar waxaa lagu odhanaya weyne mar waxaa lagu odhanaya intaaso 7 sifo xaraf qaata 7 tilmaamood oo kala duwan xuruufta alifbaada ee 28 ah wax 7 sifo qaata isagaa jira sidaas darteed
waxaa muhiima in macalimiintu ay aad ardayda ugu baraarujiyaan ardaydana aada loo baro. imanka waxaa laga yaabaa marka imanka aynu suuratulfaatixa oo qura soo qaadano bisinkeeda laga soo bilaabo ilaa dhammaadkeeda markaynu u fiirsano halka ay suuratulfaatixa ka bilaabmayso oo bisinkiya iyo dhexdeedaba waxaa laga helayaa ra-dii. markaasaa ra-daa markuu qofku akriya suuratulfaatixa oo qura inuu qofku weyneeyey iyo inuu yareeyey way kala caddaanaysaa. marka waxaa muhiima qofku inuu garto sifaadka ay ra-daasi leedahay. matalan bismi illaahi araxmaani araxiim markaynu bisinkii faatixada u horeeyey haddii aynu bilowno ra-da halkaa kuta way fadxaysan tahay, markaasaa lagu odanaya ra-si waa la weyneynaya, fadxahaasaa keenay. ra-da sababta loo weyninaya bismi illaahi araxmaani araxiim fadxay leedahay. masaa matalan waxaad qaacida waxaad qaadantaa ra-c kasta oo fadxaysan oo aad qur-aanka ku aragto weyne. habka loo weyneynayana waa anigii soo sheegay hor dibna waynu ka dhigi doonaa. carabkaa laysku soo waxoogaa laysu soo dhaweynaya afka. laakiin haddaad akrido bismi illaahi araxmaani araxiim haddaad tiraahdo dee waad qaladay, ra-dii oo weyneyn u baahnayd baad yaraysay. halka meelaha qaarkoodna ra-da laga yaraynayo risqoo ri yaree leanna ra kasta oo kasraysan waa la yareeya. sababta keenaysaana waa sababtaasaa keenaysa. marka waxaan uga jeedaa xarafkan ra-du xaraf sahlan maaha. halkuu ka soo baxaya waa caaradan hore, weliba dhabarkaa iyo dhanxariga sare inay istaabtaan uu kor u kaco. haddii la doonayo in la weyneeyo maca carabka xagintiisa kor baa loo qaadaya. haddii la doonayo in la yareeyo waa hoos baa loo dhigaya, waa la dejinaya si ay u kala yaro fogaadaan oo ay khafiif u noqoto marka lasoo saarayo. wuxuu ku soo ururayaa saddexdaa xaraf ee laam nuun raa. haddii saddexdaa xaraf ay isku meel kaaga soo baxaan waa ku wanaagsantahay haysdhibin, waayo culimada qaar baa qaba waa isku meel. haddii saddexdu furuuqdaa yaryar ee aynu u samaynay iyo farqigaa yar ee u dhexdhexeeya ay kuu hirgasho marka aad tijaabadaada samayso, ilaan qof walba waxaa laga doonayaa intuu hamse hor dhigo inuu xarafka reebo ama uushadaa laga doonaya ay ku waafaqdo midba midka kale inay ka duwanto farqigaa yar u dhexeeyo. taasina waa kuu sax. makhrajka sagaalaad sideedaad waa carabka caaradiisa. waxaa la raacinayaa jiridda iyo gunta foolasha sare. foolashaa sare guntooda ayaa waxaa la gelinayaa carabka caaradiisa. saddex xaraf ayaa markaa halkaa ka soo baxaya. gunta foolasha waa xaggaa hoose iyo carabkan caaradiisa oo qabsaday guntaa ayaa waxaa ka soo baxa saddex xaraf. saddexdaa xaraf waxa ay yihiin daal taa taa. saddexdaa xaraf weeye daal taa taa. saddexdaa weeye. saddexdaa xaraf waxa ugu xoog badan taada oo carabka gebigiisa sida wax kor loo dallacaya ayaa laga dhigaya oo xagga sare daboolaysa dabool oo kale. laakiin labada xaraf ee kale way furnaanayaan. daalka waxaa inaga mamnuuca inaynu deel akhrino. dadkeenna waxay imanka u dhigtaan marka ay xarafkaa dhiganayaan deel iyo daal bay dhahaan. deel iyo daal ma jiraan, waa daal waa ka bilaa dhibicdee hore, daal waa ka dhibicda leh. farqiga u dhexeeya dhawaaqoodu waa isku mid, laakiin farqiga u dhexeeya waxa weeye midna carabkaa lasoo yaro saaraya, midna carabka lama soo saarayee carabka caaradiisa ayaa foolasha guntooda ku dhegaysa. daal daal daal. taada iyada taada waxaa la doonayaa marka lagu dhawaaqayo in neef soo raacdo, waa inay hawa soo raacda. at hadday xidhanto at hadday noqoto waxay isu bedeli doontaa baabay isu bedelaysaa
oo laga xidha hawada saas darteed marka taada lagu dhawaaqay ta 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 إذا جاء نصر الله والفتح والفتح وين سرعة marka saddexda xaraf farqiga u dhaxeeya waxa weeye sifaadka iyo tilmaamaha ku soo baxayaan bimaana waxay ka dhigantahay horena waynu u sheegnay isku guri bay ka soo baxaan qol bay wada leeyihiin laakiin waa saddex xaraf oo kala duwan xagga qolka mooyaane oo waxa ka saddex ruux oo qol wada degan oo kale ka dhigan yihiin saddexina ba qol wada degan dee horta qolkaas uu ka wada dhaxeeya waa goobtii laakiin mid waliba wuxuu leeyahay sifooyinkiisa iyo tilmaamihiisa gaarka ah buu leeyahay hebel la tilmaan maaha oo la sifa maaha oo uma eekadee hebelka kale saasoo kale xarafkana xarafka uga duwan yahay ka sagaalaad waa makhrajka sagaalaade waxaa ka soo baxa saddex xaraf goobtuna waxa weeye carabka caaradiisa waa la mid saddexdii xaraf ee hore iyo guntay ahayd gunta foolashaynu ka hadlaynay foolasha caaradoodan ayaa imanka ay kuwan hoos ugu soo dhaadhacayaan laakiin marka carabka caaradiisa iyo foolasha caaradeeda la isu soo dhaweeyo waa in yaroo banaani u dhaxeeya banaan yar waa inaan isku dhegin in yaroo banaani u dhaxeeya saddexda xaraf ee ka soo baxa waxaa la yidhahdaa صاد زاي siin saddexda xaraf waxa weeye waxay culimada qaar yiraahdaan marka ay runtii aad noogu sharxi jireen saddex caaro oo isu soo dhawaaday bay dhahaan saddex caaro oo isu soo dhawaaday ayay saddexda xaraf ka soo baxaan saddexda caaro waa maxay foolasha sare caaradooda hoolasha hoose caaradooda carabka caaradiisa saddexdaasoo in yar oo banaanina in yar oo fakadina u dhaxayso ayay ka soo baxaan farqiga u dhaxaynaya waxa uu noqonayaa habka sifada ama tilmaanta la doonayo in la raaciyo ee uu ku soo baxayo unbaa u dhaxaynta oo saad marka leeyahay si weyn baa loo soo saarayaa carabkaas kor loo qaaday siinka iyo zaydana waa laga daynayaa saddexduba waxay leeyihiin foori ay leeyihiin foori laakiin waa habka fooriyoodu way kala duwan tahay saad saad siin 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 zaay 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 eedana waxaan jecelahay xarafka u dambeeya zaay inaan sharxo marka caruurteena loo dhigayo ay macallimiintu u dhigayso macallimiin fara badan waxay ugu dhigaan zaa bay ugu dhigaan zaa maay zaay ya baa lagu soo gabagabanayaa zaay zaay ayaa loo dhigaya marka keli loogu dhawaaqayo ama marka xaraf kale lagu xidhayo dee waa xarafkii waxaa lagu dhawaaqayaa uun isagoo gaara إذا زلزلت الأرض زلزالها وايو كلمة حرف كلا لغو حري مسي كلمة نقطي لكن يدو هالكا تاغن وحا لورنا يا زاي سين صاد 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 كواحا ممنوع عينا ترى صاد صاد ودبناها اوي رغاتو ماي لما دونيتا dibnaha haddaad u taag weydo oo markaad ku dhawaaqaysa aad u taag weyda in yaro dhaqdhaqaaqa dhibaato male oo dii waxa laa yukallifu Allahu nafsan ilaa wus'aha laakiin se saadka siinka zaydu xuruufta dibnaha maaha ee halala soo xuruufta dibnaha ka soo baxda waxa weeye waa kuwa inoo soo socda qolka tobnaad iyo makhrajka tobnaad ee guriga weyn ee carabka ka soo baxa waa saddex xaraf iyaguna saddexda xaraf waxa ay ka soo baxayaan caaradii carabku iyo waxa isqabsanaya kuwii hore way isu dhawaadeen waxa isqabsanaya iyo caarooyinka foolasha sare foolasha sare caaradooda iyo carabka caaradiisa ayuu isku dhagaya saddex xaraf baa halkaana ka soo baxa saddexda xaraf waxa weeye ذال فا ضا فا وحوي ذال فا ضا هبا اسلمين با لبدا فولة سريع عاردو دا إيا عارض عرب كون سيرة تابسي
markaad saa isu taabsiiso ku dhawaaq daal fa dha saddexda xaraf marka aynu ka hadlayno waxa ugu culus dha ayaa ugu culus dha ayaa ugu culus kor baa carabka u kacaya sifo ay kaga duwanto xoogeynaya ayaa ay leedahay labada xaraf ee kale iyagu tha iyo daal way sahlayeen thada waxa muhiima inay neefta soo raacdo tha daalka isaga lama odhan karo dheel daal lama odhan karo ee waxaa la odhanayaa daal ayaa la odhanayaa casharadeyna dambe ayaynu halkaa kasii wadi doonaa wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره